Hello everyone and welcome back to our YouTube with another exciting lesson. So today waxaan ka hadlaynaa haddii lahayd introduce yourself in English. Sida aad English dad iskugu bari kartid ayaa maanta cashkeenu ku saabsan yahay. Marar badan waxaa dhacdo in ardayga ama qofka la weydiiyo introduce yourself ama iskaan who are you yaa tahay. And then arday badan waxaa ku dhacdo inaysan sida ay rabaan aanay isku bari karin dadka ama ay ku dhacdaba they can't say anything waxba inay dhihi kari waayaanba. So maanta cashkan wuxuu ku saabsan yahay how to introduce yourself in English. Sidaad English iskugu bari lahayd dadka weliba adigoo adeegsanayo si qurux badan oo cajiib ah. So waxaan ku bilaabaynaa marka hore cashkan qaybta hore waxay ku saabsan tahay parts of self introduction ama qofka markaad u isbaraayo qaybuhu ka kooban yahay maxaa muhiim inuu sheego. What do you have to say? You could start with greeting, salaantina marka hore ku bilowdid, and then your name, magacaaga ayaa sheegaysaa. Then where you from, meeshaad ka soo jeedid ayaa sheegaysaa. You could mention magaaladaada ama dalkaaga inta baad sheegi kartaa. Haddii aad dadka isbaraysid ay yihiin, for example, Soomaaliya joogta, Soomaaliya isbaraysaa. You ma dhehaysid waxaan kasoo jeedaa Soomaaliya, because they already know inaad Soomaali tahay inta badan. So waxaad leedahay magaalada kasoo jeedid aad sheegaysaa markaas oo kale. Galgaduud ama gobol xataa waa sheegi kartaa kasoo jeedid ama gobolka Banaadir whatever meesha marka kasoo jeedid. And then what you do for living waxa aad qabatid shaqadaadu maxay tahay ayaa sheegaysaa. And then waxay sheegaysaa your hobbies, hobbigaagu muxuu yahay, waxyaabahaas jeceshahay xilliga free timekaaga inaad qabatid ayaad sheegaysaa. And then your personality, shakhsiyadaada, what kind of person are you, qof noocee ayaa tahay ayaa sheegaysaa. And then closing waxaas waad soo xiraysaa markaas asaan qaybta dambe gabagabada ahayd ayaa sheegaysaa. Inta ayuu ka kooban yahay introducing yourself, intaas ayaa ugu muhiimsan. So aan guda galno waxaan ku bilaabnay hello everyone. Qof waliba haya qof waliba oo kale ayay ka dhigan tahay ashaan waa salaan adigoo dadkoo dhan wada salaamaya maadaama dad badan la hadlaysid. haddaa qof keligiisa la hadlaysidna magaciisa sheegi kartaa. And then you say my name is Cabdifataax Cumar. magacaaga xagga ayaa ku bedeli kartaa magacayga Cabdifataax Cumar, but you can just call me Abdi, laakiin waxaad kaliya ugu magacaabi kartaan Cabdi. xaggaan oo kale your first name ayaa sheegaysaa ama haddii magacaaga koobaad ama haddii kale haddaad naanays leedahay ashaan magacaas jeceshaadu markaa inay dadku ugu wacaan maadaama Cabdifataax Cumar uu dheer yahay oo kale magac kooban oo gaaban. I'm from Somalia ayaan kasoo jeedaa. waa haddaad la hadlaysid waxay aheeday dad aanan Soomaali ahayn. haddaad Soomaaliya joogtid ood Soomaali la hadlaysid you wouldn't say I'm from Somalia. Somalian kasoo jeedaa. Doesn't make any sense, right? waxaa sheegi kartaa markaa waxaa dhihi kartaa I'm from Banaadir, I'm from Jubaland, from Galmudug, wherever aa kasoo jeeda markaa. I work as a teacher. waxaan ahay macallin ayaan ahay. What about daadan macallin ahayn? You could say, for example, I work as a doctor. dhakhtar ayaan ahay ayaad dhihi kartaa. xagga marka waxaa iska ilaalisaa inaad tiraa I work as a student. ma dhihi karta I work as a student. arday ahaan ayaan u shaqeeya ayay macnaheedu noqonaysaa markaas. Because meeshan ergan waxaa noo yaalo I work, waan shaqeeyaa waxaan u ahay shaqadiidu waxay tahay marka a teacher, macallin. saas camal ay u dhigan tahay Soomaaliyan haddii loo turjumi tago, laakiin waxaan ka raacaynaa ujeedadoo ah waxaan ahay macallin, sax? marka I work as a student macno ma samaynayso, waxaan u shaqeeyaa arday ahaan. hadda arday tahay waxaa dhihi kartaa marka I am student, waxaa iska dhigi kartaa I am student, sax? So aan kasoo qaadnaba I work as a teacher yaan dhahnay, macallin tahay kasoo qaad. I really enjoy helping students learn and grow. ashaan I work as a teacher markaad tiraahid macallin aan ahay, faahfaahin dheeraada macallinimada iyo adigu why aa u jeclaatay ama faahfaahin dheeraada ka bixinaysaa xaalada. marka I really enjoy waxaan ku raaxaystaa ama jecelahay helping students inaad dadka ka caawiyo learn inay wax bartaan and grow kobcaan maskaxdooda aqoontooda inay kobcdo. So weli waxbaradii kasii hadlaya wuxuu leeyahay teaching, waxbaradu gives me a lot of joy and purpose. waxay siisaa uu leeyahay farxad badan iyo inaan markaa ujeedo inaan hadaf ku taagan ayaan dareemaya camal. So haddaa dhahdaba kasoo qaad as a teacher meeshaan ka dhehayna aan ku bedelno I work as a doctor. dhakhtar ayaan ahay. So you wouldn't say haddaa dhahda marka dhakhtar ayaan ahay I really enjoy. meelahan highlightedka ah dhan waad iska bedeli kartaa ay ka dhigan tahay macnaha si ay ku maaj garay karaan
your job and your name and anything si u match garay karaan ama ay ugu qalmi karaan waa iska bedeli kartaa. So lacala haddaa dhahday haddaan ku bedelno kale I work as a doctor waxaan leenahay kale I really enjoy helping students learn and grow. Meeshaan kale waxaan ku bedelaynaa helping people stay healthy. Taasoo kale bedelaysaa inaan dadka ka caawiyo inay caafimaad qabaan. meeshaan oo kale teaching ayaan soo celinay xitaa waxaa ku bedeli kartaa it gives me a lot of joy and purpose. waa haddaad teacher bedesho waa meeshaan doctor u bedesho kale a doctor xaggan oo kale markaa iyadana waa iska bedelaysaa meelaha highlight gareynay oo dhan waa bedelaysaa markaa. haddii kalena hadday shakhsiyadaada aqbalayaan okay waa laakiin qaybta inaad bedeshid waa muhiim. Then in my free time xilliga freegaaga maxaa qabataa meeshaan waa hobby marka waxaan kasoo hadalnay greeting your name magaci where you're from xaga kasoo jeedid what you do for a living intaa baan kasoo hadalnay. waxaan maraynaa marka your hobbies hobbigaagu muxuu yahay xilli marka in my free time xilligayga firaaqada I like reading books. waxaa jeceshaa markaa sheeganaysa adu waxaan jecelaha buu leeyahay reading books inaan buwaagta akhriyo watching movies inaan filimaanta movies ka daawado and learning about different languages and cultures. sidoo kale waxaan jecelahay inaan wax ka barto learning about different languages luqado kala duwan and cultures iyo dhaqamo kala duwan. marka adigu waxaa jeceshaa ku bedelo meesha ka leeda I like reading books you could say I like swimming and watching movies whatever aadu markaa jeceshahay. and xasuusnow inaad isticmaashid the grand verb ama ing inay raacsiisid verbabkoo dhan sida reading watching learning jida ing inaad raacsiisid dhammaantooda xasuusnow insha allah. And then I also enjoy spending time with my family and friends. waska faahfaahin dheeraada waxaan ku raaxaystaa spending time with my family and friends inaan saaxiibadeyda iyo qaraabadii qoyskayga aan dhehe inaan la qaato maxay waqti inaan la qaato ayaan sidoo kale jecelaha buu leeyahay. xagga marka waxaan gudagelaynaa your personality shakhsiyadaada maxay tahay. I would describe myself waxaan isku tilmaami lahaa haddii la yidhahdo istilmaam what kind of person are you hadii la weydiiyo waxaan isku tilmaami lahaa buu leeyahay I would describe myself as a friendly qof friendly ah friendly waa qofka dadka soo dhaweysta saaxiib lala naqan karo and positive person qof positive ah wanaaga xaggiisa diiradda saaro calashaan. who likes kaasoo jecel buu leeyahay learning new things inuu barto waxyaabo cusub and meeting new people iyo inuu la kulmo dad cusub. It's a pleasure to meet you all. xagga meesha u dambeeya marka waa closingki xaggani waa closing soo xiritaanki waa waxaa kusoo xiraysaa marka it's a pleasure to meet you all inaan idinla kulmo dhammaantiin farxad ayay ii tahay and thank you for listening waadna ku mahadsan tahay listeningkaaga. marka ogsoono inaad iska bedeshid dhammaan meelaha aan highlight garaynay. for example hello everyone my name is Mr. so and so magacaaga ku bedelaysaa but you can just call me meesha waxaa ku bedelaysaa magac kooban oo dadka si fudud u qaban karaan I'm from Somalia meeshaa kasoo jeedid. haddaa markaad la hadlaysid dad dibadda joogo kale aadna Soomaaliya joogin you'd say I'm from Somalia ama dalkaa kasoo jeedid aad sheegaysaa. laakiin haddaad gudaha joogtid dalkaa isla dad aad la hadlaysid oo kale Soomaaliya oo kale aad joogtaaba Soomaaliya aad tahay macna ma samaynaysa inaad tahay marka Soomaaliyan kasoo jeedaa they already know. so waxaa leedahay I'm from maybe magaalada sheegaysaa markaas oo kale ama gobolka. I work as shaqadaada qofka maxaa tahay a teacher a doctor shaqadaada markaa sheegaysaa maxaa shaqada qabatid and I really enjoy helping meeshaan oo kalena waxaa ku bedelaysaa wax aqbalaayo xaggan teacher aan dhahan hadda macallin muxuu qabtaa wuxuu qabiyaa inuu ardada ka caawiyo inay wax bartaan sax laakiin dhakhtarka muxuu qabiyaa wuxuu ka caawiyaa dadka inay maxay ay caafimaad qabaan. so waxaa leedahay marka I really enjoy helping people stay fit or stay healthy ayaa leedahay marka. teachingna waa bedelaysaa iyadana marka it aa ku bedeli kartaa hatee it gives me a lot of joy and purpose saasoo kale aa bedeli kartaa. free timekaaga waxaa qabatid ayaad ku xijinaysaa oo hobbigii and then personalitygii and then that's all closing ayaa u dambeeya marka. so the student version ama qaybta ardayga sidan oo kale ayay noqonaysaa xagga magacaaga iyo meesha kasoo jeedid ba iska bedel. so it be like hello everyone my name is Abdifatah Umar I am from Somalia I am a student I study English
I really enjoy learning this language because it helps me communicate with people from different countries and understand other cultures better. In my free time, I like reading, watching movies, and practicing speaking to improve my pronunciation. I also enjoy spending time with my friends and family. I would describe myself as a curious and friendly person who always likes learning new things. It's a pleasure to meet you all, and thank you for listening. So, thank you very much, and have a good one.